waxaa wax laga xumaada ah dawladda federaalka Soomaaliyeed maanta qaabkay u dhaqmayso waa qaab ka lagu tilmaamo الذباب الإلكتروني بالله دقسيقة إلكترونية runtii waxaa jira saxafiyiin fara badan oo dunida carabta ka shaqeeya oo samaystay Twitter iyo Facebook been abuur ah shirkadda Twitter iyo Facebookna waxay ku hayaan maalin kasta dhibaato ah inay Facebookyadooda iyo Twitteradooda xiraan siyaasad taa la mid ah ayaa dawladda federaalka ay ku dhaqantaa waana nasiib darro dadka yaalan maran habaabin waxaa loo baahan yahay dawladnimada Soomaaliya ee aan u socono horta marka koowaad waa dawlad federaal ah أري باكوسو نغنغضا ورباهنتا دولة فدرالك الصومالية waxay ku leeyihiin TV-ga iyo raadiyaha qaranka war Soomaaliya maanta heerkii qaran iyo magaciisa dhaaftay dagaalkii sokeeye marka uu dhacay wixii ugu horeeyay Soomaali markay shidhay Djibouti ku shireen waxa lagu balamay in la sameesto dawlad goboleedo xubin ka noqdo dawlad dhexe ee Soomaaliyeed runtii Puntland anigoonan u xaglinayn inaan nin reer Puntland ahay wasiirna ka ah laakiin gartu markay lillaahi tahay Puntland waxay ku taagan tahay wixii Soomaali ku heshiisay oo ah in dadkan uu ku dhaqmo nidaam federaal annaga iyo dawladda federaalka ah khilaafka noo dhaxeeyana runtii waxa weeye waa waxaan la yiraahdo kalamaan ama carabtu ay tiraahdo al-adrash fi zaffa nin dhagool ah oo la geeyay xaflad aroos wuxuu maqlamaya jira Puntland waxaan ku haynaa war wixii aan ku heshiinay aan ku dhaqanno dawladda federaalka ahna way garab martay oo way diiday oo waxay u socotaa waxa loo yaqaan dawlad dhexe waxa la yiraahdo u socotaa mana ahan waxay Soomaali ku heshiisay waa wax Soomaali kala geenaya Soomaali isku soo aruurinteed iyo isku keenideed waxa weeye nidaamkan ku heshiinay tolow aan ku dhaqanno cilmi baaris la sameeyeen waxa la ogaadayba qofka Soomaaliga ah wuxuu dad la wadaago wuxuu gaar u leeyahay wuxuu horumarin karaa waxa uu gaarka u leeyahay asaga oo ah nidaamka federaalka inuu yahay nidaam ku suuban kuna haboon dabeecadda iyo bii'adda shakhsiga Soomaaliga ah